darsigii hore wuxuu inoo mareeyay inagoo soo dhisnay website-kii labaad ee ahaa tijabo.a001.net. marka gudihiisa ayaan galaynaa si aan ugu install gareeno daymiskii aan idiin ballan qaaday inaan soo helay ee ahaa Jannah News. sida caadada ah insha Allah waxaan kasoo tirtiraynaa website-ka waxyaabihii widgets-ka loo yaqaanay ee dhinacyadan safnaa sida ka aragtaan kuwan dhan ayaan kasoo tirtiraynaa si aan ugu install gareeno daymiskii aan idiin sheegay. haddii aan waxyar idinka tuso ama qaabka ay u taalo naqshadeeda daymiska loo yaqaano Jannah News. waa kana daymiskii aan idiin sheegayay ee aan soo helay. qaybahan oo dhan ayuu u kala baxaa sida aragtaan midda defaultiga ah waatan touch technology ayay leedahay video haddii aad u baahan tahay, haddii aad u baahan tahay games caruus waxyaabahaas oo dhan haddii aad tahay qof maxaa la yiraahdaa xiiseeya ama ay howshiisa tahay waad isticmaali kartaa oo mid ayaad ugu install gareysan kartaa. oo haddaan idin tuso midda defaultiga ah sidoo kalena uu ku shaqeeyo website-ka goobjoog waa kana demo ayaan leenahay si uu gudihiisa inoo geeyo. runtii gudihiisa waan idin tusi doonaa oo version kala duwan ayay leedahay. sababta ay halkan isaga ka waayeen midaas ayaa keentay in qolooyinkan oo mar hore soo gatay daymiska waqti horena maxaa la yiraahdaa install gareystay waa versionka qaybtiisa hore. dabcan website-kan sida ogtaan waqti hore ayaa la dhisay sidoo kale nimankaana ayaguna iskale maxaa la yiraahdaa daymiskana waqti dambe ay update dhahan oo mar waliba update ayaa la dhahaa. versionkan ay haddana kusoo baxday oo waxaad ka ogaan kartaan halkan waxaa kaloo ka ogaan kartaan qaybta ay ku qoran tahay sports kuwii hore waa kana iyaguna wuxuu ahaa ciyaaraha waa aragtaan ciyaaraha kadib waxaa la rabaa inuu halkan kasoo muuqdo category halkan ay news ku qoran yihiin waa kaasa uu kasoo muuqdaa laakiin versionkooda ayaa xoogaa kala yar bedelan oo kuwan update ayay dhaheen. daymiskan sidan u quruxda badan ayaa gacanta inoogu jira insha Allah tacaala waana ku install gareyn doonaa waana ku duubi doonaa website-ka aan hadda inagu soo dhisayno. waayahay qaybtii hore waxaan kusoo baranay sida loo isticmaalo cPanel-ka haddaan ka yara baxo sidoo kaleetana aan iska xiro tijabo.ebz.com. kan refresh balaan dhaho wixii haday aan kasoo tirtirno si aan u aragno iyo sidoo isku bedelay waa kana. marka qaybtan waxaan ku baranaynaa insha Allah tacaala FTP-ga waa sidoo kale mid kamid ah waxyaabaha waxtarka leh oo ay siisay shirkadan. waa kana FTP details halkan ayuu ka muuqdaa oo maxaa la yiraahdaa sida aad aragtaan website-keena tijabo.ebz.com oo kii hore aan soo dhisaynay ayaan inta gudihiisa sii galno asaga ayaa FTP leh asaga gudihiisa ayaan kasii galaynaa oo halkaas ayuu kusii dhex jiraa website-kan maxaa la yiraahdaa qaybta laga isticmaali lahaa midkan aragtaan tijabo maadaama aan isagoo inta dhisnay kadib kan kusii dul dhisnay waa guri aan dhisnay qol gudaha ku yaala ayaan sii dhisnay. sidaas daraadeeda FTP-gan ayaan galaynaa. markaan FTP-gan galno gudihiisa ayaan insha Allah tacaala waxaan ku arki doonaa wax waliba oo aan uga baahannahay inaan maxaa la yiraahdaa ka samaysano website-keena ee ahaa Tijabo 2. sidaas daraadeeda waxaa muhiim ah inaad ogaataan daymiskan hadda aan hayo waa kana haddii aan idin tuso daymiska maxaa la yiraahdaa waan soo upload garay karnaa sida caadada ah ee la yaqaano oo loo upload gareeyo daymisyada. daymis inta tagno ayaan soo upload garay karnaa laakiin wax suurtagal ah ma ahan oo inta badan inuu ka go'o ayaa laga yaabaa. oo haddii aan properties iraahdo waa aragtaan waa 20 MB 20 MB inta badan iyo wixii adii 15 MB wixii iska badan website haddii upload soo dhacdo waxaa laga yaabaa in uu ka go'o. sidaas daraadeeda waxaan isticmaalaynaa software loo yaqaano FTP. FTP-gas waxaa idin soo dhigi doonaa
maxaa la yidhaha linkiga aad ka download garaysan laheedeen muuqaalka hadda aad daawanaysaan insha allah. haddii aan ilaaho oo aan soo dhigi waayona gmailkeyga ayaa igla soo xiriiri kartaan. ftb-ga marka crack iyo wax ayuu leeyahay, waad insha allahu tacaala waa iska jabi doontaan oo waxaa idin sii doonaa wixii lagu jebin lahaa. markii halkan uu kuu soo baxo qeyb ayaa inta ka muuqata, dabcan insha allah waan qarin doonaa oo waa akoono halkaan igu jira. markii halkaan aad joogto waxaad taabanaysaa meesha baluugan ee ay dul saaran tahay calaamada yar ee gaduudan oo ay u dhigan tahay new, macnaha mid cusub sameey, sayd cusub soo xarayso. magaca koowaad waxaan ka dhigayaa tijaabo. dabcan sidaan hadda aniga aan u sameynayo waa inaa ula raacdaan tijaabo.ebc.com. host address waxa detailska u baahan tahay oo dhan halkan ayaad insha allahu tacaala ka aadi kartaa. waa kana waa aragtaan ftb detailskaaga halkan ayay kugu siiyeen oo usernamekaaga kan buu noqon doonaa, passwordkaaga kan buu noqon doonaa, hostnamekaaga kan buu noqon doonaa, boort haddii uu ku weydiiyo inkastoo uuna ku weydiinin intaan ayuu noqon doonaa. marka mid mid ayaan u qaadayaa. halkaa markii aad joogto passwordka dabcan wuu kaa qarsan yahay oo show israashade labada midaa doonto ayaa sameyn kartaa. hadda aniga waxaan sameynayaa, waxaan qaadayaa hostname ayaan qaadayaa. username ayaan soo qaadayaa. ugu dambeyn passwordka ayaan soo qaadayaa oo waxaan leeyahay show si maxaa la yihahda aan u arko koobina aan u yiraahdo. intaa markii aan sameeyo keliya waxa liiga baahan yahay waa inaan dhahaa connect. dabcan wuu ku xirmay sidaa aragtaan oo halkan ayuu soo fadhiistay. waa midkaan ugu dambeeya ay ugu qoran tahay tijaabo.ebc.com. marka kan wuxuu faa-iidada noo leeyahay waxay tahay ftb cid maanta website isticmaasho oon ftb lahayn ma laha. wax waliba waad u baahan tahay halkan ayaa kasoo upload garaysanaysaa, website-kaaga ayaana si toos ah kaga soo muuqanayaan. sida hadda meesha aad ka aragtaan foldaradan waxaa ka muuqda tijaabo.a001.net, asaga ayaan gudihiisa sii galaynaa. folderka ay ku qoran tahay ht ayaan sii galaynaa gudihiisa. halkan waa aragtaan waa qeybtii uu ku dhisnay softwarekii wordpresskii ahaa. wax badan runtii kalama bedelno. haddii aan idin tuso wordpress shaashada yaala oo aan extract here dhahay, waa kana wax sidaas usii bedelan runtii kama muuqanayaan. dabcan isna waa aragtaan waa kuwan. marka waxaa gudihiisa sii galaysaa folderku ku qoran yahay wb-content. baymis ayaa sii dooranaysaa. halkaa markii aad joogto waxaad minimaas ama aada soo yareynaysaa ftb-gii aada u baahan tahay. ftb-ga ayaad soo yareynaysaa. folderkan oo aan idiin soo dhigi doono daymiska ayaad double click leedahay, waad sii galaysaa. midka uu ku qoran yahay janna ayaad waxaad leedahay extract here. dabcan ani inuu extract here ayaan dhahay oo waa kana halkan ayuu yaalaa. waan dhahayaa si idinkana aan idin tuso extract here. wuxuu leeyahay dhammaan way yaalaan laakiin yes to all ayaan leeyahay si uu mar kale halkan ugu dhigo. markii halkan aad joogtid kan aan soo yareeyo, markii halkan aad joogtid waxa kaliya lagaaga baahan yahay waxay tahay inaad maxaa la yihahdaa kusoo jiidid midka folderka ah, midka maxaa la raarka la geliyey ee ha soo jiidin midka uu ku qoran yahay Jannah News oo 13 MB markaad dul saarto mouse-ka calaamadiisa ayaad soo jiidaysaa, halkan ayaad dhigaysaa. waqti badan ayuu qaadanayaa runtii oo waxay ku xiran tahay hadba sida uu internetka uploadka speedkiisa u sareeyo ayay ku xiran tahay. sida uu u socdo
marka uu dhameeyo qaybtana halkan aad ka aragtaan 1.16 KB uu ku qoran yahay ayaa dhamaystirmi doonta oo khad cagaaran ayaa halkan soconaya halkan ayuuna ku tagayaa